الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. aad baan u salaameynaa qoladiina bahda saxaafadda. halkan daysniintii waxaanu ka tagnay 2 cashaanu maqneen oo shaqo ayaanu Addis Ababa ugu maqneen. wafdi ka kooban baanu ahayn gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha iyo aniga iyo Axmed Muumin Saad. waxaanu socdaalad safarka aanu ku tagnay Addis Ababa. waxaanu la kulanay madaxda dalka Itoobiya. saaka waxaanu aragnay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. shalayna waxaanu aragnay wasiirka khaarijiga ee Itoobiya. marka ugu horeysa waanu mahadnaqaynaa ra'iisul wasaaraha, dawladdiisa, wasiirka khaarijiga, shacabka dadka Itoobiya aynu walaalaha nahay, xidhiidhka badanna leenahay. socdaalkayagu inta badan waxaanu ka hadlaynay waanu ka wada hadalay in la sii xoojiyo xidhiidhka labada dal. wayna ka warqabnaa dalka jaar baynu nahay, xuduud weyn oo ballaadhanna waynu leenahay. arrimahan ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa marka ugu horeysa in la xoojiyo oo la sii adkeeyo xidhiidhkii labada dal horeba ay u lahaayeen ee soo jireenka ahaa ee muddada dheer soo jiray ilaa iyo intii dowladaha Somaliland ba aynu xorriyaddeena dib ula soo noqonnay. waxaan ka wada hadalay cilaaqaadka khaarijiga ah inaan sii wada adkayno, nabadgelyada inaan ka wada hadalno, in aan ka wada hadlo arrimaha ganacsiga labada dal, in ay xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsiga intaba maxaan ku dhahdaay aynu ka wada hadalno oo xoojino. waxaan kala hadalay isu socodka labada dal in ay qayb weyn oo laxaad leh ay noqoto. aad baynu imika isaga u wada soconnaa, dadkeennu aad ba halkan uga tagaa. ardayba ay naga joogta fara badan, deeqa waxbarasho dooraba ay na siiyaan. maxaan ku dhahdaay in ardadana sharcigooda iyo joogistooda Itoobiya ay aad dawladda Itoobiya u aqbasho in maxaan ku dhahdaay ay culays wanaagsan saarto sharciyadooda iyo fiisayaashooda iyana maxaan ku dhahdaay ay qayb weyn ka qaadato. si fiican baanu arrimaha isula fahanay, si fiican baanu uga sheekaysanay. waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana aynu sii kordhino. way danaynayaan iyaguna nabadgelyada Somaliland iyo arrimaha isdhaafka iyo maxaan ku dhahdaa iskaashiga baac mushtarka iyo ganacsiga in la xoojiyo. meel aad iyo aad u fiican iyo safgarad wanaagsan ayaanu isla gaadhnay. waa mahadsantiin.